Warar naxdin leh oo ka soo baxaya dalka Pakistan ayaa sheegaya in halkaas tiktoor lagu soo xiray isaga oo lagu eedeynayo in uu cudurka dilaaga ah ee loo yaqaano HIV/AIDS uu qaadsiiyay caruur tiradoodu gaadhayso 500. Dhacdadan xanuunka leh ayaa ka dhacday gobolka Sindh sida uu sheegay madaxa hay'adda la dagaalanka AIDS-ka ee dalka Pakistan. Caruurtan tiradoodu gaadhaysa 500 ayaa u badnaa degmada Larkanaan oo ku taalla waqooyi galbeed ee dalkaas. Toddobaadkan hortiisa ayaa hay'adda la dagaalanka cudurkaas war-saxaafadeed ku sheegeen inay la yaaban yihiin sida dhaqsaha badan ee cudurkani u fiday, iyadoo xilligaas ay u maleynayeen in dhacdadani la xidhiidho shilisyo dawooyinka oo si khalada loo adeegsaday. Tiktoorkan oo isagu qaba cudurkan loo yaqaano HIV/AIDS-ka ayaa hay'adaha arrinkan ka shaqeynaya magaciisa shaacin, balse waxa ay warbaahinta la wadaageen in baadhitaan dheer ku socdo iyagoo la filayo in uu lacag ku qaadanayo qiimihiisu yahay boqolkii qof ee uu qaadsiiyaba $10,000 Mareykanka. Mas-uuliyiinta arrinkan ka hadlay ayaa ka gaabsaday inay afka ku dhuftaan cidda uga shakisan yihiin inay lacagtan bixinaysay. Alool.com, Singh, Pakistan.